maamulka koonfur galbeed ayaa dowladda Masar u jeediyay eedo culus oo la xiriira burburinta maamulka Baydhabo iyo in hubka dowladda Masar siisay Soomaaliya la geeyay degmada Burakaba. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Dr. Cali Fiqi ayaa sheegay in saanad military ay hore u siisay dowladda Masar Soomaaliya taas oo loogu talagalay difaaca qaranka iyo la dagaalanka argagixisada hadda loo leexiyay khilaafka ka jira koonfur galbeed isla markaana loo adeegsanayo wiiqida maamulka. Gudoomiyuhu wuxuu xusay in hubkan lagu qalabeynayo ciidamo lagu aruuriyay degmada Burakaba arintaas oo ku tilmaamay mid qatar weyn ku ah xasiloonida iyo amniga deegaanka. Wuxuu carabka ku adkeeyay in talaabadani ay si cad uga hor imaanayso ujeedadii loo keenay hubka isla markaana ay kordhinayso halista ku aadan kalsoonida lagu qabo hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal oo ku daabacay bartiisa X ayuu ku yiri sidaan qoryahan ayaa markii hore ay bixisay dowladda Masar si loo xoojiyo amniga qaranka Soomaaliya loogana difaaco dalka cadowgiisa dhabta ah. Ujeedadu marnaba ma ahayn in loo adeegsado khilaafaad gudaha ah ama lagu jeediyo shacabka Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee waxa hadda soo baxaya warar muujinaya in hubkan loo dhiibayo maleeshiyaad ku sugan Burakaba isla markaana loo adeegsanayo dadka ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed. Tani waxay si toos ah uga hor imaanaysaa ujeedadii iyo mas'uuliyadii lagu bixiyay hubkan. Marka hub qaran oo loogu talagalay difaaca dalka loo adeegsado qaabkan waxay kicinaysaa xiisado hor leh si fogeynaysa bulshada waxayna halis gelinaysaa nolosha dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Waxaa sidoo kale jira warar aad u walaac leh oo tilmaamaya in dowladda federaalka xilligan uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay hub ku rareyso diyaarado si loogu adeegsado gudaha koonfur galbeed. Hubkani waa hanti qaran oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed waxaa loogu talagalay difaaca dalka iyo badbaadinta muwaadiniinta mana haboona in loo leexiyo dana gudaha oo keeni kara colaad iyo sidoo kale kala qaybsanaan. In la arko hubkan oo loo diyaarinayo isku dhac gudaha waa arin murugo iyo walaac weyn leh waxayna dhalinaysaa su'aalo culus oo ku saabsan jihada siyaasadeed iyo mustaqbalka dalka. Xilli ay Soomaaliya u baahan tahay deganaan wada hadal iyo midnimo qaran talaabooyin noocan oo kala ah waxay halis ku yihiin in dalka loo jiheeyo colaad aan loo baahnayn ujeeddo siyaasadeed midna ma mudna in lagu waayo naf Soomaaliyeed. Haddii dariiqan la sii wado cawaaqibta ka dhalan doonta ma ku koobnaa doonto koonfur galbeed oo kaliya balse waxay saameyn doontaa guud ahaan dalka.